السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا كسو دوادا محاضرة دي أينو كبلان سنين maanta oo axada bishu tahay 21 bisha November 2021 sidii aynu ku wada ballansanayn maanta waxa inoo bilaabanay waxa inoo jirta muxaadaradeennii ciwaankeedu ahaa isku dhacyada Soomaalida asbaabta caqabadaha istiraatiijiyadda nabadeynta waxa ay muxaadaradani qayb ka tahay silsiladii muxaadaraadka aan ugu talagalnay ama ku saabsan Soomaaliya aan ugu magac darnay muxaadaraadka ku saabsan Soomaaliya arrimo tagay iyo kuwa taagan muxaadaraadkan oo ilaa iyo hadda saddex xaba ay noo soo baxeen saddex muxaadara ay noo soo dhaceen tanna waa midii afraad marka waxa maanta Martino ugu ah Dr. Yusuf Sheekh Umar oo mataqaana aqoonyahan qoraa ku saabsan arrimaha isku dhacyada conflictiga iyo nabadeynta waxa ka qora waxna ka baara Dr. Yusuf soo dhawow sida caadada noo ahay Dr. Yusuf wuxuu haystaa 40 daqiiqo kadibna hadii la yiraahdo waxa noo bilaaban doona su'aalo iyo wixii faalo aad ku dareysaan dabcan Facebook waad nagala socotaan oo live baan ku jirnaa YouTube waad ka daawan doontaan markii programka intaan duubno dib loo soo geliyo hadii la yiraahdo marka Dr. soo dhawow 4 daqiiqo haysata insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdi wali aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dadka xuduurka ah dhageystayaalka ah aad iyo aad mahadsan tahay marka hadii alla idmo qaab wuxuu u dhici doonaa interactive mataqana discussion oo ah dadku inay qayb ka noqdaan mataqana soo jeedinta naftigooda qaabkaas oo u dhicin doona maadaama macallin aan ahay inta badan waxaan isku dayaa knowledge-ku dadka dhexdooda ayuu mataqana ku jiraa marka African Research Association for African mataqana Association for Research and Development sidoo kale dad aad iyo aad bay u mahadsan tahay silsilada muxaadaraadkan ama seminaaradan aad qabanqaabisaan runtii aad u qiimo badan laba seminaar oo horaan ka qayb galay marka runtii duruus waxaan ka faa'iideystay ay adag tahay meel kale in laga helo inta haddaan ka gudbo waxaan malay maanta waa maalinkii macallinka Soomaaliyeed marka inaynu xusno waa muhiim sidii shaacirkii muslimka ahaa I think Ahmed Shawqi inuu ahaa uu yiri qifl al-muallimi wa'tihi tabjila kada al-muallimu an yakuna ar-rasula mawduucan oo nabadeynta mataqana la xiriira asaaskiisu waxa weeye iyo xalkiisu waxbarashada asaas u ah mashaakil kasta oo la rabo in la xalliyana furuhu waa waxbarashada weeye marka maalinku waa maalin runtii munaasiba oo ku soo aaday muxaadaradan ama seminaarkan iyo maalinku sidaas panelka ku jirna ama Facebooka runtii dadkii la weydiin lahaa weeye mawduuc aan ka hadlayo carabta waxay dhahaan ahlu Makka adra bi shacaabiha nuxurku waxa weeye ummad kasta ay meesha ay joogto iyo xaaladeeda iyo duruufteeda ayada og cid ka aqoon badan waxa ay u baahan yihiin iyo meesha xal ka raadinayaan ma jirto laakiin toosin iyo farsamayn bay u baahan tahay oo dadka khubarada ku inay la farsameeyaan otherwise hadii loo baahdo mashaakil Soomaaliya ka jira in la xalliyo ama nabadda in la baadi goobo ama mashaakilka in laga hadlo dadka la weydiinayay dadkii la noolaa weeye mashaakilka ku soo dhex noolaa nabaddana markaa tilmaami kara meelaha ay mataqaana jirto weeye marka anigoo as instructor ama muallim doorkaygu waa inaan sameeyo facilitation waxyaalo dayar khibro maadaama muddo aan waxaan ku dhex jiray aqrinayna wixii eray bixina ama loo baahda macluumaad kale oo dheeraadan inaan idinla wadaago weeye marka ciwaanku waxa weeye ciwaanka haddaadna tusta Cabdiweli aad bay u fiicnaan lahayd seminaarka ciwaanka yes marka ciwaanku waa Englishkan martii qaatay si istilaaxaadka iyo terminology-ga aan u fasiro af Soomaaliga waa luqad aad u macaan laakiin academic ahaan
dugsi sare igu actually dugsi sare xitaa kuma qaadan luqo inta aad u cilmiyeysan ama runtii luqo qani ah weeye laakiin luqo aad u cilmiyeysan ma ah marka qofkii cilmi baaris samaynaya waxaad moodaa inuu luqadahan kale adeegsado ama carabiga ama ingiliishka ama luqadahan kale oo dee da'da weyn inay ay lagama marmaan tahay mararka qaarkood marka ciwaanku wakaas waxay the Somali mataqaana conflict root causes obstacles in the peace building strategies in Somalia slide-ka ku xiga Cabdiweli haddii alla idmo the content ama muxtawayaadka darsiga waxa weeye forumkani waa sidan key sorry raadi hada waydii baa iga qaldantay marka the key objectives yadu ayaan ka hadli doonaa waxaynu isla fiirin doonaa tacriifinta mustalaxaadka ama terminology-ga ku jira mataqaanaa seminaarkan iyo discussion wada socda haddii alla idmo waxaynu marka isla eegi doonaa the root cause of conflict in Somalia juduurta iyo xididada mashaakilka Soomaaliya inagoo isla fiirin doona dhammaanteen waxaynu markaa fiirin doonaa oo kale obstacles ama caqabaadka hortaagan nabadda waxaynu isweydiinaynaa benefits of conflict isku dhucu ma leeyahay waxa la yiraahdo faa'iida ma ku jirtaa solutions strategies of peace building in Somalia xulul iyo istaraatiijiyada qaabkii nabadda loo kobcin lahaa Soomaaliya ama loo dhisi lahaa ama loo nabadeyn lahaa saartadhe kabacdina khitaam iyo conclusion haddii alla idmo oo ah comments and questions haddii alla idmo okay the key objectives waxa weeye waa sidan soo socota defining the concepts of conflict and the peace and strategies saddexdaas ayaa seminaarka u ah lafdhabar inaynu tacriifino the reality is markii mawduuc laga hadlayo haddii mustalaxaadka ama the terminologieska weeraha asaasiga aan la tacriifinin lama fahmayo mawduuca dhan lama fahmayo xal lama raadin karo juduurtiisana lama raadin karo marka istilaaxaadkaas inaynu ama terminology-ga aan tacriifino waa muhiim weeye understanding the root causes of conflict in Somalia inaynu marka isla fiirino haddana juduurta iyo asbaabta keenta isku dhacyada Soomaaliya exploring the best ways to address conflict roots in Somalia root cause in Somalia qaababka ugu habboon oo xulul ah iyo learning by doing it through interactive group discussions marka afartan ahdaafta weeye ka ugu dambeeyana uu yahay learning by doing inaynu barano si ficil ah through interactive mataqaana group discussion dadku markay ka qayb qaataan wada hadalka markaasay waxbarashadu dhab tahay laakiin mustamci kariim haddaa tahay wax weyn ma imanayo haddaba waxaan u gudbaynaa istilaaxaadkii mataqaana definitions and discussion weerda conflict anigu af Soomaali waxaan ku fasiraa isku dhac isku dhacu wuxuu noqon karaa mid xadguduba oo dhibaato keena iyo midaan xadgudub ahayn buu noqon karaa marka conflict marka la fasiraya waxa weeye is an active disagreement between people ama laba qof ha ahaadaan ama kooxo ama laba wadan waa kala gadisni iyo khilaaf ama kala aragti duwani ama kala fogaansho masaalix kala duwan dana kala gadisan oo u dhaxaysa laba qof ama laba kooxood ama laba wadan saddex qof bay noqon karaa majmuucaad kala gadisan oo mutanaafira oo soo kala horjeeda ayuu noqon karaa conflictigu mid ka dhaxeeya hadda xaaladda Soomaaliya kugu filan intaas oo madax oo isgarab ordaysa oo kooxood ama qaab diini ah wataan oo dagaalama ama siyaasiyiin ha noqdaan ama ganacsato ama beele ama kooxo kaleeto waxaasoo dhani waa conflict waaye marka conflict can be violence or non-violence isku dhaco wuxuu noqon karaa oo kale mid xadgudub ah iyo midaan xadgudub ahayn marka conflictigu waa general san sheega isku dhaco waa istilaax ama terminology guud marka wuxuu yeelan karaa laba weji oo ah xadgudub iyo weji oon ahayn xadgudub wejiga xadgudubka ah asna wuxuu yeelan doonaa laba weji oo ah xadgudub oo physical ah gacanka hadal oo kaleeto iyo xadgudub oo aflagaadi iyo mataqaanaa caye ah
marka xadgudubku labada waji marka violence marka la fasirayo itself violence is an action or word is intended to hurt others xadgudub la socda waa conflict qayb kamid ah waa conflict waxaan yiri wuxuu noqon karaa xadgudub oo violence ah ama non violence hadda istilaaxan dambe kuma jiro marka violence wuxuu noqon karaa ama xadgudubku waa ficil ama kalimaad ama weero loola qastay in dadka kale lagu dhibaateeyo dhibaataantaasi ha noqoto mid oo physical ah oo badani ah ama mid ha noqoto aflagaada ah nin professor caan la yiraahdo professor John matqana Pollard oo Mareykan ah runtii aan buugtiisa aad u jecelahay dadka nabadda ka shaqeeya ee noola dadka ugu fieldigan ugu sareeya kamid ah wuxuu yiri markuu tacriifinayo violence is the behavior of someone who is unable to imagine alternative solutions for the problem at hand في عربي العنف هو سلوك شخص غير قادر على تخيل حلول بديلة للمشكلة المطروحة حدقدب وحاوية وقف مسكحديس runtii ay ka cajistay inay soo dhiraan dhiriso xal aan ahayn gacanka hadal ama xal aan ahayn xadgudub bimacnaa waa qof maskaxdiisu madhalaysay tahay waa qof غير منتج عقليا iyo maskaxiyan qofkaasa wuxuu sameeyaa ku noqo kii hore qofkaasa wuxuu sameeyaa waxa la yiraahdo mataqaana violence ama mataqaana xadgudub marka runtii waa tacriif aad iyo aad u xoog badan haddii aad aragto ummad ay ku badan tahay xadgudubku uu ku badan yahay xadgudubkaasi ha noqdo mid oo badani ah oo dee qofka la dilayo ama xabad ama midi ama toorey ama jukala la siinayo ama xadgudub oo afka ha noqdo dacay iyo aflagaada kale iyo xitaa waxa la yiraahdo stereotypes ama prejudice taxayus inaad dadka qaar jeclaato qaar aad iska nacdo oo fikri ah waa xadgudub waaye ama waxa la yiraahdo mataqaana النمط الفكري oo ah afkaar aan jirin ay dadku iska aaminaan oo dadkaas waa la yasaa sababta loo yasaa waxay tahay sheeko barelay aan cilmina ku salaysnayn noloshana ka fog common sense-gana ka fog ay dadkii iska aamineen caado weeye marka waxaasoo dhani mataqaanaa waa xadgudub marka ummad haddaad aragto xadgudubka uu ku bato ama ha noqdo mid badani ah ama ha noqdo mid af lagaadi iyo malaxumi iyo wax ka sheegid ah waxaad ogaataa ummaddaas wax soo saarkii dhinaca fikriga ahaa bimacnaa mala'waal iyo takhayul inay samayso maskaxdoodu ay wax soo saarta ayaa aad iyo aad daciif u ah cunfigu af carabiga cunfi baa lagu yiraahdaa mataqaana violencega ama af soomaaligana xadgudub waxaad rabta ku dheh the violence ama xadgudubku waa cudurrada la isqaadsiiyo kamid yahay isalaaga bushfire sida dabka markuu qabsado kaymaha oo kale dabku waad aragtay wuu iska sii socdaa kayntii buu geedba geed u gudbiyaa ololka mataqaana wuu sii gudbaa ama sida cudurrada faafka oo kale oo covid-19 la isqaadsiiyo ama TB-da oo kale ama waxa la yiraahdo infectious diseases ama contagious mataqaana disease cudurrada la isqaadsiiyo oo kale weeye violence-gu ama xadgudubku oo مثلا tusaale ahaan ka soo qaad qoys waa unugyada ugu yar bulshada mid kamid ah haddii nin iyo xaaskiisu ay xadgudub u dhexdooda ka dhacay dagaalamaan is aflagaadeeyaan carruurtiiba horta u gudbayaa cudurkaasi oo ah inay mataqaanaa ay ogaadaan meesha waxa ka taagan mataqaana trust inuusan jirin dadkan dagaalameen qaraabadii ninkii iyo xaaskiisa qaraabadooda u gudbayaa labadii qaraaba isnacaya isaflagaadeynaya 2 bilood baa laga yaabaa dadkii deriskaabu u gudbayaa laga yaabaa marka dambe dagaal inuu kaba dhashaba marka cunfigu ama xadgudubku waa la isqaadsiiyay anaga hadda Soomaalina waynu aragnay talabaad waxay dhahaan violence begets violence العنف يلد عنفا cunfi ama xadgudub hadduu bilowdo intaa kuma ekaanaya xadgudubyo kale oo cusub ah haddana dhalanaya kuwa kale oo markii hore jirin ayuu mataqaana sii abuuraya socodsii slide ku xiga okay
types of mataqaana violent conflict waa violencega markaa ku jira kii kale ma ah noocyada cunfiga xadgudubka ah waa laba mid direct ah oo toos ah mubashir af Soomaali wuxuu noqon karaa badani dilkii iyo wixii lamida way gacan ka hadalkii ama rabshad iyo mid oo ah indirect oo ah marka aflagaadadu waa direct way taas aynu la soconayna isku qaldamin cayda iyo aflagaadada iyo malaha xun oo dadka kale aad ka malaysato waa xadgudub oo mataqaana ah toos waay kuwaasi because waa wax oo si toos ah qofkii u saameynaya marka indirect violence oo aan ahayn tooska waa مثلا da'yarta Soomaaliyeed waxbarasho inaysan helin waa xadgudub laakiin aan toos ahayn ilmo kasta oo Soomaaliyeed cunug kasta ama gabar kasta xaq waxay u leeyihiin waxbarasho inay helaan ibtidaa'i ah secondary ilaa jaamacadeed laakiin haddii boqolkiiba 30 kaliya ay dugsi hoose u helaan registration ama diiwaangelin 70 kale waa lagu xadgudbay runtii waxay xaq u lahaayeen bay laayihiin marka waa xadgudub oo dimni ah ama aan toos ahayn waxbarasho shaqo iyo fursado camal iyo resource ila dhaqaale inay helaan dadku guud ahaan si ay u noolaadaan waa xuquuq ay leeyihiin haddii ay waayaanna waa xadgudubkaasi oo aan tooska ahayni wuxuu ka iman karaa haddii carruurta la yiraahdo dhinaca waalidiintood dhinaca dariska dhinaca wuxuu ka iman karaa dawladda shaqalaydu sidoo kale cid kasta oo mas'uuliyad ay saaran tahay oo awoodo inuu shaqo abuuro oo shaqo abuuri waayay oo hantidii si xun u adeegsaday oo kaleeto waa xadgudub bay sameynayaan hadda Soomaaliya waxaan ognahay doorashooyin baa lagu jiraa waxaa la leeyahay biyo la cabo xoolihii abaar bay u dhimanayaan sidaas xaaladdu ay tahay waxaan u jeednaa kuraas la leeyahay waxaa lagu iibsanaya 1,500,000 marka waa xadgudub waay wixii dadkaas waxa loogu qaban lahaa ayaa la rabaa in wax lagu iibsado kuraas oo mataqaanaa status iyo mataqaanaa jah kaliya oo dadkii laga fikirin marka waa xadgudub oo غير مباشر ah nabadaba hadda aan u nimaadno haddana aan tacriifino nabadda marka xadgudubkii baan ka hadalnay waxaynu ka hadalnay conflictigii oo laba waji lahaa xadgudub iyo midaan xadgudub ahayn haddana xadgudubkii baan ka hadalnay oo ah mid toosa iyo midaan toos ahayn conflictiga aan xadgudubka ahayni isaga waxa weeye maynaan kaas ka hadlin kaasi waa dadku inay fikradaha ku kala gedisnaadaan laakiin aysan isnicin aragtidu inay kala gedisnaato مثلا waxaynu ognahay fuqahada islaamku inay afkaarta iyo tafsiirinta aayadaha iyo xadiidka ku kala gedisnaayeen haddana way isjeclaayeen waxaynu ognahay asxaabta xitaa nabiga ibnu Cabbaas waa kan la yiraahdo shadaa'id ibnu Cabbaas iyo rukhas ibn Umar inay fikradahoodu kala gedisnaayeen dhinaca aragtida islaamka ma la adkeynaya ma la jilcinaya waxaynu ognahay xadiidkii laa yusallina ahadukum illa fi bani qurayda salaada miyay tukanayaan intaysan gaarin bani qurayda mise waa ijtihaadaad waay marka kuwaasi waa wax aad iyo aad u wanaagsan qaabil waafaqsanna macnaha xadiidkii inkastoo la yiraahdo waa daciif laakiin macnihiisu waa daciif waa saxiix ikhtilaaf ummati raxma ummaddu inay fikradda ku kala gedisnaato iyo intaajka dihniga ah waa waxay mataqaana maslaxa ku jirta kaaminaan runtii ka hadleen nabadda haddaba aynu u nimaadno nabaddu maxay tahay nabaddu waxay yeelan kartaa laba waji waxa la yiraahdaa negative peace tacriif ahaan negative peace is an absence of war waa istilaax ama tacriif qadiimi ah oo ah nabadi waa inuusan dagaal jirin bimacnaa nabadi waa inuusan jirin dagaal waayadii hore oon cilmiga aad u horumarin baa sidaa loo arki jiray laakiin cilmiga nabadda markii aad loo sii gudagalay waxaa la arkay nabaddu inay tahay ama positive peace waxa yiraahdaa ama sustainable mataqaana peace assalaam mataqaana daa'im in lagu tacriifiyo absence of harm waa maqnaanshaha wax dhiba bini aadamka inuu mataqaana maqan yahay oo ah wax dhibkaasi waa inuu ahaado xadgudubkii unbuu mataqaana noqonaya marka xadgudubkii mubaashirka ahaa oo badaniga ahaa physicalka tooska iyo midkii غير mubaashirka ahaa oo mataqaana aflagaadadii iyo wixii lamidka ahaa ama inaan waxbarasho aflagaadadu waa midka tooska ah way basically laakiin dadku inayna fursado shaqo helin discrimination inuu yimaado
gender inequality in la yiraahdo oo rag iyo dumarka raggaa sarreeya waa xadgudub lagu xadgudbaya runtii mataqaana dumarka waxaad arkaysaa niman xitaa diin adeegsanaya oranaya ragga mataqaana dumarka ka caqli badan ka waxaysan xadiidkiiba runtii si xun u fasirayaan naaqisaatu caqli wadiin iyagoon aqoon badan runtii islaamka u lahayn iyo haddana tashwiish iyo tashwiih mataqaana ay samaynayaan oo nusuusta kale aan mataqaana egin waxaa ka mid ah absence of harm inaan dadka waxbarasho inay helaan saan hore mataqaana usoo sheegin inaan cidna la yeesin wada strategy hadda baan u nimaadno strategy oo qaybta dambe ee marka xalkay galaysaa seminarka xulusha marka la raadinayo marka hore waa in laga soo hadlaa mashaakilka waan soo tacriifinay waa in laga hadlo the root cause kabacdina istaraatiijiyada loo gudbay the strategy maxay tahay strategy is a long term plan for achieving something or reaching goals yacnihi waa qofku ama qaranku ama ummaddu ama kooxdu waa inay leedahay qorshe ay rabto inay wax xaqiijiso waxbaa u xadidan ay rabaan inay ay ka meel gaaraan ay xaqiijiyaan waxaa lagu xaqiijiyaa qaabo badan laakiin 5Ws iyo 1H oo ah markii istaraatiijiyada la qorayo what horta substansiga ama the content muxuu yahay waxaan rabnaa inaan xaqiijino in la tacriifiyaa wixii la isla meel dhigaa why baan waxaan u xaqiijinaynaa waa in haddana la isweydiiyaa and when goormaa la xaqiijinaya waa in la isweydiiyaa and where meeshee lagu xaqiijinayaa and who yaa hawshaa qabanaya and then how sidee loo qabtaa kabacdi detailsa kaleetiya tafaasiishi iyo in acmaashii la jabiyo sidii loo fulin lahaa deliveryga loo samayn lahaa yay imanaysaa hal xaba gadaal u celi adoo raalli ah okay good hadda okay good horey u soco imkaan marka haddaba waxaan idinka codsanayaa maadaama aan idhi waxaan u baahanay interaction inaan noqono inay dadka panelka ku jira ee ka qayb qaadan karaay qaab kelimaada kooban inay ay uga qayb qaataan what are the root causes of conflict in the Somali society yaa yani qodob dad points ama yaa sheegi kara waxyaalaha the root causes of mashaakilka Soomaaliya sharaxaad badan ma sugayna hadda laakiin qodobkaas oo kale مثلا waxbarasho liida oo kaleeto waa the root cause haye marka dhageystayaalka panelka ku jiraan rabaa inay ay hadaan si degdegana loo hadlo si waqtigu inoogu socdo kalimaad koobanna la sheego annaga waan qorayaa kabacdina waxaan ku dari doonaa powerpoint-ga waan idin soo diri doonaa haye cabdiweli marka dadka ku jira panelkan rabaa soo dhawow garad waa mahadsantihiin madasha iyo professorka waa salaamaya Somali context marka la fiiriyo waxyaabaha oo conflict ka dhaliyo waxaa ka mid ah gaar ahaan miyiga waxaa ka mid ah daaqa iyo biyaha okay marka waxaa ka mid ah daaqa iyo biyaha good fantastic okay haye yaa kale waxa kale ku daraya haye hala socdo hala wado water and pasture haye daaqa iyo biyaha Abdulqaadir soo dhawow xosh Abdulqaadir sayidow waxaan siday kulay noise badan uga baxayaa waxaan ku dari lahaa faqriga okay faqriga baahida okay faqri yes okay haye yaa kale doctor waxaan ku dari lahaa faragelinta shisheeye okay faragelinta shisheeye good haye yaa kale haye yaa ku daraya way badan yihiin the root cause-ka asbaabta keentaa mashaakilka Soomaaliya iyo isku dhacyada aad iyo aad bay mataqaana u badan yihiin maxaa kaloo kamid ah maskaxda laga soo dhawow ma ku soo noqon karaa iyo qof kale uusan jirin waa maasanta professor waxaan ku dari lahaa markii magaalooyinka la soo galay hadda arrimaha siyaasadda oo kale kamid ah khilaafka siyaasadda marka siyaasadda iyo siyaasad oo mataqaana qariban waaye siyaasadda guud yes haye maxaa kale marka lagu diri karaa ya
arrinta garad arrinka agdhow oo magaalo urbanizationka mataqaana aan qorshaysnayn oo dadku inay magaaladii soo galay ku soo yaacay markii baadiyihii abaara ay dhacaan oo dhibaato ka dhacdo. Yeah, absolutely, you are right. Yeah, magaaladii dadkii la circiraysa way qaadi laadahay oo basiibooyin iyo waxaa dhashay displacement iyo barakacyaal oo kasoo barakacay gobolada. Yes, haye Abdallah soo dhawow. Abdallah waa ku siiyey. waxaa laga yaabaa inuu ku jiro qof wuxuu Farax waxay soo qortay والله مقلية lack of effective central government. if ineffective matter. Lack of effective central government. Okay, good. Ayaa Abdallah soo dhawow مقلية Yes. السلام عليكم وإن السلام يا waxaan isleeyahay maxaan ku radaa kheyraadka dabiiciga qayb iyagu ka yihiin conflictska sida meel dhulka qaybtoodii yani waxa ka jira in macdan laga baaro ama laga helo waxa kale oo ka jira shaqo la'aantuna qayb bay ka tahay conflicts. Yes, absolutely, you are right. Yes, shaqalaydu qayb bay ka tahay. Hay Ibrahim Maxamed. Ibrahim. Okay. I think waxyaa qodobo aad runtii muhiim oo asaasi ah. Yes, qabyaalada. Yes, nepotism. Farax baas ayaa soo maaha Farax. Yes, a lot of effective Farax. Yes, nepotism. Yes, that's really good point. marka qabiilku aan la socono qabiilku itself mashaakil ma ah laakiin waa qabyaalada way waa dhaqan xumida waa human behavior. Yes, laakiin Ibrahim baa soo laabtay haddaan siinay. Ayo, okay. Ustaad waxaan dhihi karaa jahliga midda diiniga iyo midda maadiga sabab u tahay. Yes, jahliga. Yes, jahliga israaca isaga dhanba. Yes, good, fantastic. I think intaas inoogu filan brainstorming. Waxyaalo kalena way noo soo socdaan. waxaan samaynayaa I will mataqaana incorporate insha Allah slide-yadan aan kusoo dari doona kabacdina Cabdiweli baan la wadaagi doonaa fikradihiinaan gelin doonaa. Cabdiweli slide ku xiga. Okay, marka anigana just wax yar oo my own khibradayda ah iyo dee waxaan aqriyay una khibradda wax aniga keliga iga yimid ma laakiin fieldigan ku dhex jiray internal mataqaana mashaakilka wuxuu ka bilaabanayaa marka koobaad waxa la yiraahdaa upbringing, sida carruurta loo tarbiyeeyo. culimada peace buildingka waxay isku waafaqsan yihiin iyo culimada tarbiyada iyo macallimiintu in waxyaalaha asaaska ah carruurta ay guriga mataqaana ka soo bilowdaan. Maalan qaabka mashaakilka loo xalliyo, qaabka dadka loola hadlo, qaabka wax loo maamulo, qaabka xiriir fiican loo sameeyo, gurigu ka soo bilowdaa. Marka nabadeynta asaaskeedu waa inuu ka yimaado guriga, hooyada iyo aabbaha iyo unugyada qoysku ka kooban yahay. iyo ka bacdina iskuulka primary schoolka. Laakiin waxaynu arkaynaa iska celi waalidiin oranaya carruurtooda iska dhiciya mataqaana qayrkaas ayaynu runtii u jeednaa. dhaqan ma aha nabadeed, waa dhaqan violence ama xadgudub iyo runtii aad inoogu badan nolosha adaga difficulty-gana runtii way keentay. Yes, exactly. Ineffective mataqaana governance, maamul aan ahayn mid active ah ama wax soo saar leh. Bimacnaa waxaynu ognahay institutionada dowladdu ama ha noqdaan stateyada ama federaalka, haddii institutionadu ama hay-adaha dowladdu aysan ahayn kuwa wax soo saar leh oo khibradii iyo waxa la yirahda capacity tayadii iyo karaankii uu meesha ka maqan yahay ama daacadnimadkii waa qayb ka mid ah waxyaalaha internalka ah oo ina haysta. Illiteracy, jahliga waad sheegteen. waxaa kaloo ka mid ah limited resources, masaadirtii oo xadidan oo sidii loo sheegay maalan baadiyaha oo kale daaqa iyo biyaha ayay dagaaladu ka bilaaban jireen, ceelasha iyo wixii mataqaana lamida. Assumptions, yacnihii fikrado laga aamino beelaha qaar ka mida ama qof baad iska nahaysaa waxbaa maskaxdaada gelaya aan jirin
yaad ku abuuraysaa meel awaala oo really aan asaas lahayn ama beel dhana waxaad arkaysaa labeling lagu suntayo beeshaas waxaas waa kuwaas waxaas weeye weliba beelaha mataqaanaa aad iyo aad xirfada leh laakiin xirfadoodii u noqday victim ama daxiya u noqday cunsuriyada ya kamida waxyaalaha externalka ah ama inaga baxsan nagama baxsana laakiin somehow banaanka imanaya historical events nin la yirahdo Malik bin Nabi mufakir aljazairi from Algeria wuxuu leeyahay fikrad la yiraahdo colonizability alqaabiliya lilisticmaar waa nin mufakira marka fikradan asaga develop gareeyay oo international level caalamul islaam iyo Afrika markii la gumaysanayay caalamka saddexaad wuxuu yiri gumaysigaasi kama imaanin awood wadamadii wax gumaysanayay xaggooda iyo doonitaan xaggooda laakiin wuxuu ka yimid ducfi wadamadii la gumaysanayay ayaga waxay lahaayeen qaabiliya lilisticmaar bimacnaa in la gumaystay u diyaarsanaayeen hadda inaga Soomaaliya wax kasta oo sheegno inaynan dawlad lahayn waxba aanan qabsan karin runtii faragelintu waxa weeye waa heer aad u hooseeya banaanka nooga imanaysa ducfiga ugu badan wuxuu ka imanayaa gudaheena marka haddii la ina farageliyo ama wadamo darisa ama banaanka ama kambaniyo ama wadamada khaliijka islaynaya waa ducfi inaga arkay inagiibaa waxaan diyaar u nahay in la farageliyo la inaga shaqaysto waxaa keenaya xiriirkeena daciifka probably aayadii macnaheeda baa soo xasuustaa ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم exactly marka Malik bin Nabi alqaabiliya lilisticmaar marka historical events markaan leeyahay waxaa kamid ah isticmaar baa Soomaaliya gumaysan jiray isticmaarkii Soomaaliya inuu wax u qabto ama Afrika iyo caalamka la gumaysan jiray oo dhanba maysan u imaanin inay wax u qabtaan inay adoonsadaan bahdilaan khayraadkooda ay mataqaana dhacaan ayagu dadkan inay ka sareeyaan ka caqli badan yihiin ay isu arkayeen markii la dagaalamay oo la yiri waa la xoroobayna dadkii madaxda noqday runtii dad fiican ay ahaayeen niyo fiican laakiin khibriya asaas kale wax ku maamulaan ma aysan lahayn oo ka ahayn kii isticmaalka ay ka dhaxleen kii isticmaalku baan fikrad dawladeed u haysanay mesela inaga soo qaad Soomaali ahaan isticmaalka markuu tagay Talyaaniga Ingiriiskii nidaamkii dawliga ah ee ka hanad qaaday gobolada waqooyi iyo koonfurta iyo isku darkiiba waxa uu asaaska ku hayay nidaamkii Talyaaniga iyo Ingiriiska laakiin la isma weydiinin of course dadkii way fiicnayeen madaxda ahaayeen hore dad niyo fiican ay ahaayeen laakiin manhajkii iyo governing systemkii ay ku dhaqmayeen ma ahayn mid bulshada Soomaaliyeed cunamo oo gudaheeda ka yimid oo taariikhdeeda iyo dhaqankeeda iyo value-geeda la jaan qaadi kara ma uusan ahayn marjiciyo uma ahayn waxay Soomaalidu ay aaminsanaayeen ama ay fahmayeen marjiciyo ma lahayn أنا بعد وجدين سجال سنة أيضاً قارين الديمقراطية دي مشاكل بدن سو قاري الديمقراطية هو نظام آدو في عن لكن واحد يكون في عن تهي كونتكستيجا أما سياقك والضماد أي كسو أبو رنتي يدهر كسوورت أنا يكيب أكون ولا هاي والضماد أي كبل لعبة الديمقراطية دي لكن دي كل سنة يجي سوق بتين ويسود قلمين لكن كوبي كان بيست سو كوبي جري ملك كضبق مجتمع noloshiisu iska gedsan tahay beela waydan ogaadeen xisbiyadii ugu dambeeyay 1969kii beelbeel bay wixii iska wada noqdeen ilaa madaxweynihii ay sahayatay okay ka soo gudub nidaam military yimid kii hore ku celi shuuci ah asna nidaam oo laga keenay Soviyetkii meelo kale ahaa okay haddana 4.5 baynu ku jiraa warlords baa mataqaana lagu jiray marka waxaa soo dhan markaad fiiriso waa historical events oo mashaakil inaga laakiin banaanka inta badan ka yimid 4.5 ka marka laga reebo I don't know fikradda 4.5 waxa la yiraahdaa Ethiopia create gareysay oo waxay ay la jaan qaadsiinaysay nidaamkan iyadoo ethnic federalism ka wadankeeda ka jira inagana mataqaana kalam federalism oo kaleeto 1997 fikraddaas soo dareemay la yiraahdaa lagu develop gareeyaan maqlay 4.5 ka marka ma aha fikradda asal ahaan Soomaaliya ka timid beela baan nahay laakiin 4.5 in fikrad dawladeedna looga dhigo dhinaca Ethiopia ka timid asal ahaan tii isticmaalka waan sheegay tii shuucida waan sheegay marka intaasi midna dhaqankeena iyo diinteena iyo qaabka Soomaalida isku maamuli jireen laba jaan qaadayo still sidaas oo ay tahay waxay dhahan historical events ama dhacdooyinka taariikhiga
way joogayaan ma zuulaan qayb waxay noqonaysaa taariikhdeena iyo ismaamulkeena runtii ka mid ah dad waxaa inagu jira aaminsan dimuqraadiyadii qaabkay dooni ha u aaminsanaadaan amba dadka runtii jecelaan ka mid ahay laakiin dee qaabkaan u arkay in loo fuliyo Somali context waa qaab kale weeye dad waxaa inagu jira qaabkii nidaamkii dictatorka ah iyo dowladnimadkii iyo maskaxdooda ay ku suuraysan tahay yaa Soomaaliya ku jira qaar waxaa inagu jira 4.5 maskaxdooda ay ku suuraysan tahay marka waxaasi nidaamkeena siyaasiga way saameyn dee mashaakil badan way keenayaan regional geopolitics ka mid ah wadamada deriska wadana naga leh wadamada khaliijka waxaa ka mid ah juqraafi ahaan meeshaan ku naalo ayaa cabdiweli socodsiin okay obstacles bal haddana aynu isweydiina maxaa caqabaad ah waxyaalaha geedi socodka nabadda Soomaaliyeed iyo dadka isku soo dhaweyntoodii iyo soo celinta isku tiirsanaantii iyo dareen wadaagii iyo wax wada qabsigii internal external idinku labada dhinac ka eegaysiin maxaa caqabaad inagu hortaagan kama hadlayo asbaab hore of course waxyaalaha hadda soo sheegnay oo soo sharaxdeen waa la gelin karaa oo root cause-ka ahaa laakiin haddaad dhinacyo kale ka eegi kartaana would be good haye waxyaalaha obstacles مثلا maxaa ka mid ah مثلا haddaan bilaabo obstacleska waxaa ka mid ah lack of will dooritaan inuusan ka jirin dhinaca siyaasiga ah madaxda Soomaalida ee siyaasiyiintu runtii waxa la yiraahdaa will ama doonitaan kama muuqato otherwise nolosha sidan ma ahaateen haye wax ku daray waxyaalaha obstacles markaasi waa internal external haye yaa wax ku daray garaad soo dhawo hore u gal waa maasanta cabdiweli professorkana doctorkana oo mahad celinaya waxaan isleeyahay waxaa ka mid ah kala aamin baxa bulshada dhexdeeda ku dhacay yes absolutely yes mistrusting ama yes haye yaa wax ku daraya aamin xumida yes waa internal waaye exactly waa asaas waaye waxa weeye waxyaalaha dagaalkii sufaya oo keena kamid waa la kala irdhoobay shaki baa jira aad waa la kala shakisan yahay yaa wax kale ku daraya sidaan waxaan ku dari lahaa inaan si saxa looga heshiin waxyaabihii dhacay oo taariikhdii dhacday inta la fariistay inaan laga baranin cashir laga barano yes real reconciliation inuusan dhicin haye mawlid soo dhawo Dr. Yusuf waa mahadsan yahay runtii waxaan ku dari lahaa dowladnimadan loo carbisnayn xataa dadka dalka hogaaminaya ay dowladnimada carbis uma hayaan oo waxa weeye kamina soo shaqayn iyo marka interestiga qof walba uu leeyahay waxyaalahaas diidayo badalaa marka waxaa tiri inaan systemka dowladeed la fahansanayn iyo personal interestiga okay good that's really very important point okay sucaad waxay soo qortay inaynaan daraasayn xagee ka nimi xagee soo soconnaa yes that's really very important yes farax maxamed waxay soo qortay ama uu soo qoray farax rise of opportunistic politicians and elders okay yes opportunist yes waa midkii soo qoray asaguna qaybta internalka our political culture political culture yes that's a good point okay garaad soo dhawo mar kale mar kale aan kusoo noqday doctor waa mahadsantaa waxaan ku dari lahaa markasta dadka Soomaaliyeed waxay ka baqayaan nidaamka dowladnimada sababtuna wax kale maahan waxa la yiraahdaa state violence marka waxaan isleeyahay sidoo kale waa caqabadka ka mid ah in oo state violence-ga oo ka hadlayo waxa waaye waa negative mar walba state violence uu sameeyaa laakiin midka negative ah oo dadku ay ka baqayaan in looga arguto ayadana caqabadka good point waaye waxa weeye dadkii dowladnimadkiiba waxay u arkayaan waxa la isku ciqaabayo oo la isku dhibayo mataqaanaa xorriyadda la iska qaadayo la isku caburinayo marka nidaamkii dowladnimadkaba ma aynaan wax wanaaga ka arag mashaakil ma ahaano yes haye sucaad soo dhawo haye sucaad unmute de mute-ka iska qaad sucaad
okay sucaada usoo laabanaynaa okay good marka soo hore ugu soc marka okay socodkii qofkii kalena waa meesha still mataqaanaa chatting boxkana loo soo gelin karaa qofkii waqti u waayay slideka ku xiga marka inoo socodsiiso that's really fantastic yep slideka ku xiga markaas okay any thoughts okay that's another mataqaanaa issue aan rabnay inaan wax iska weydiina waaye any thoughts of conflict mataqaana benefits wax faa'iidaa oo ku jirta conflictiga markaan ka hadlayo yaan maskaxda bas la gelinin xadgudubka laakiin kii fikradaha kala gedisan aad maskaxda loogu hayo marka wax faa'iido ku jirta conflictiga yaana la wadaagi karaa okay garaad soo dhawow maasanta cabdiweli ustaadi professorkana waa u mahadcelinaa mar kale waxaan isleeyahay conflictiga sidiisa horta midna waa conflictigu disagreements keliya maahan ama destructive waxaa jira wax la yidhaahdo constructive conflicts oo tusaale haddii aan shay isku khilaafno oon aragtiyo kala gedisan ka qabno instead aan conflictkaas aan destructive u bedelin waxaan u bedeli karnaa inaan intaan fariisanno wada hadalno oo mugdiga dhexdeena aan meesha ka saarno marka conflictkaas waxaa la yiraahdaa waa constructive conflicts marka mararka qaar faa'iido u leeyahay bulshada in oo inta la wada hadlo maxay tahay laga saaro khilaafka meesha yes marka constructive conflict bimacnaa dialogue in la sameeyo madmadowga inuu meesha ka baxo mistrasiga inuu ka baxo kalsooni inay timaado ustaad waxaan ku dari lahaa faa'iidooyinka waxaa ka mid ah mar walba conflict uu dhaco waa mar walba la iktishaafo qaab cusub oo lagu xallin karo yes alabuur inaan yeelano marka mustaqbalkana laga yaaba in nabad waarta la gaaro marwalbana waxay ku xiran tahay conflictigu mar walba waxaa la dhahaa uu conflict xoog loo yahay mar walba nabad dheer ay ka dambayso marka waxaa inuu yahay wax insaanku u baahan yahay si uu nabad waarta u helo yes external international community interest example what role are AMISOM, IGAD and EU and UN mataqaana playing yaa lagu daray good kaas waa external kii hore waxay la socotay su-aashii mataqaana hore waxyaalaha obstacleska la socotay a change of people mindset and the demonization of true elders and the si fiican ku yaalaha waa fartaa yaryar degradation yes honesty and the moral values very powerful absolutely powerful marka waa internal kii waay mind I really like mataqaana word or mindset shiftiga very very important waay okay good fantastic waxyaalihii benefitka ayaa kala wax kale ku daraya kuwani waxay la socdaan arrimihii hore la socdeen externalki iyo change of people's mindset maybe midkan dambe wuxuu la socdaa benefitka change of people's mindset maybe in laga yaabo maybe yani markii dadku wada hadlaan mindset shift baa imanaya waxa weeye tanaasul laakiin qaybta dambe hadalka markaad fiiriso demonization waxaad yar moodaa of true mataqaana elders good ayaa wax kale ku daraya benefitska aan ku jiray hadda conflict is inevitable yes that's really good conflict is natural and inevitable or unavoidable waa waxoo really lazimana mataqaana inuu dhaco but all that is important is how we approach it that's really good point uu soo qoray dubad conflictigu waxa weeye waa wax waa mataqaana normal and it can happen iman هذا تجربة قبل thank you Baba that's really good mataqaana pointiyo fiican oo mataqaana soo qoray mataqaana dubad taariifkii hore ayuu mataqaana kan la socday no Baba please I'm talking go to mommy please waxay raalli hada xadwe
sorry raalli ahaada iga raalli ahaada raalli ahaada waa gabar yaraa igu soo fakatay marka waxaan u geynayay familkeed u geynayay waa khibro qof kastaba haysatin anyways qaab kala gedsanaa loo maareeyaa maanan aad uga sii fikirin okay good slide-ka ku xiga cabdiweli okay so rise of many okay you voice their concern and the call of the unity okay slide-ka ku xiga cabdiweli gadaalaan si fiican u aqrin doonaa yep okay hadda waxaan aadaynaa wixii solutionada waxaan hadda ka hadlaynay still tacriifka iyo asbaabta baynu ku ekayn strategies of peace building in Somalia social transformation at individual and communal level marka runtii laga hadlayo isbedel waxa la yaab kale oo aynu mataqaanaa wada ognahay social change mataqaanaa waa asaas waaye social change haddaysan imaanin wax runtii isbedeli kara oo la sugayo oo kale ma uu jiro marka aayaddii waxaan soo xasuustaa culimada scholarska in peace building conflict resolution waxay ka hadlayaan mindset shift yacnihii haddii la rabo isbedel inuu yimaado waa in really isbedelku uu ku yimaadaa qaabka ummaddaasi ay u fikiraan attitude-ka waxa la yidhaahda iyo suluugooda iyo dhaqankooda waa inuu complete shift waa inuu ku yimaadaa qof ahaan waa inuu ugu yimaadaa qaran ahaanna waa in mataqaana uu ugu yimaadaa weeye koox ahaanna waa inuu ugu yimaadaa marka aayaddii baa aasaasa markaad really fiiriso weyiga ay u sameeyaan analysiska waxaadna soo xasuusan in allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiru maa bianfusihim de waynu ognahay macnaheeda alle mataqaana mucjizi iyo magic sixri ah hawada kama keenayo in ummadda isbedel uu ku yimaado ilaa ayagu xataa yugayiru maa bianfusihim until they change what is in themselves waxa naftooda ku jira oo ah mindsetka iyo weygay u fikirayaan ilaa ay bedelaan marka fikirku asaga asaasa in qofku uu iska bedelo fikirka bulshadu siday u fikirto ay bedesho iyo dhaqanka kabacdina dhaqankii iyo waxaa bedelmaya iyo ficilkiiba ayaa isbedelaya marka personal transformation waa asaas unuga ugu yar bulshadu waa qofka waa marka qofku waa inuu ku yimaadaa isbedel qofka sidiisa isbedel uu ugu iman karaa through mataqaana tacliinta iyo reflectionka tadaburka uu samaynayo dadka uu la dhaqmayo tarbiyada mataqaana qoyska sidoo kale maadaama aynu nahay ummad oo la yidhahdo collective society ummad oo si kooxa u wada nool si guud ahaana waa mataqaanaa wuu noogu iman karaa mataqaanaa isbedelku marka waa asaas waaye absolutely 100% waa asaas isbedel oo dhinaca fikirka ah iyo mantiqa waa inuu yimaada hadduusan imaanin waxa kaleeto dhan tawaabic waa meeshay dhahaan culimadeenu mujahadatu nafta in lala jihaadaa waxaan aqriyayay xadiidkii ay culimo badan ay dhahaan waa daciif oo ahaa waxaan ka nimid min aljihaad alakbar ila aljihaad alasgar oo ah min aljihaad alasgar oo ah jihaadka caadiga ila aljihaad alakbar oo ah in nafta lala jihaado marka xadiidka macnihiisu waa saxiix laga yaabo sanadkiisa iyo qaabka lagu soo wariyay inuu yahay daciif marka ayadii axaadiid badan mataqaana yaa in nafta sida loo bedelo isbedel loogu sameeyo yaa ka hadlo runtii aad iyo aad mataqaana u fara badan marka waxaan aqriyay soo jiitay asxaabta qaar ka mid ah wax laga weydiiyey markaas waxay dhaheen ibda'aha mataqaana ibda binafsika faqzuha wabda binafsika fajaahidha mujaahadada waxa laga weydiiyey naftaada ka bilow naftaada ku duul marka hore naftaada shaqo ka qabo wabda binafsika fajaahidha naftaada ku jihaad bimacnaa naftaada yani waxyaalaha weaknesska ka sax waxyaalaha takaburka isla weynida ka sax waxyaalaha wanaaga oo dhan mataqaanaa ku beer ayada badan baa ku soo aruuray tasgiyatu nafsi in nafta mataqaana la taskiyeeyo mataqaana laga sheegay cilmigan tasawufka dhinacan runtii waxyaalo badana looga faa'iidaysan karaa dhinaca qofku inuu naftiisa ka adkaado marka waa asaas waxay u tahay isbedelka bulshada
ayay tahay. Abdiweli, go ahead. Okay. What are the strategies of building a peace in Somalia? yaa wax isku dayi kara, yaa wax ka sheegaya qaababka istiraatiijiyada loo mari karo Soomaaliya in peace-ka la dhiso ama peace-ka la kobciyo ama nabadeynta. idinkaan idinku soo celiyey, yaa haddana nala wadaagi kara 1 2 3 yaa wax ka sheegi kara istiraatiijiyada nabadda loo qaabeyn karo, loo dhisi karo in Soomaaliya. هيا صحابة dhegeysanaysa, haye panelka ku jira. wax sax iyo qalad midna ma jiro, qofku sida uu arko inuu cabiro baa mataqaanaa muhiim. qalad iyo sax waxa la yiraahdaa midna ma jiraan. haye Abdiweli, horta ma lay maqlaa? garaad soo dhawow, waa ku maqalnaa doctore. garaad دكتور waxaan is leeyahay waxaa loo baahan yahay kow waxa la yiraahdo grassroots peace building, oo in hoos laga soo bilaabo sida Soomaalidaba lagu yaqaanay in geed hoostii la fariisto dan halka lagu qaabeeyo. Good. marka waa bottom up waxay dhahaan, waay hoos ka soo bilow sare soo aad. Good, absolutely, that's why essential, waay absolutely waa essential waay. haye qodobo asaasaad sheegtay, asaas. Ustaad, waxaan ku dari lahaa in la helo kind of qaab istiraatiijiyad nabadeyn ku meel gaara oo mataqaanaa looga xisaabtamayo wixii dhacay, la iskaga garaabayo, ciddii mataqaanaa dembi geysatay lala xisaabtamayo, iyadoo mechanism mucayana loo marayo. dabcan dalalka annaga nala midka oo kasoo kabtay dagaalada sokeeye qaarkoodna xaalada aad u adag ka dhaceen sida Rwanda oo kale, waa in mataqaanaa laga soo qaato qaababka ay sameeyeen. uguna muhiimsan tahay ictiraaf, in dadkii dembiga galay dembigooda ay qirtaan, kuwii laga galayna loo sheego oo loo ictiraafo. mid ka mid ah waxaan is leeyahay waxyaabaha hadda nabadda lagu kordhin karo ka mid ah. marka waa reconciliation commission oo kale in la sameeyo oo musaaraxa mataqaanaa la sameeyo si toos ah oo daacadnimo ku jirto, loo qirto sida Rwanda ka dhacday, South Africa, meelo kale. marka wadamada in la midka oo khibrad dagaal soo maray oo iyagana somehow ku guuleysteen in khibradooda la soo naqlo. That's really good point. ayaa wax kale ku daraya? soo dhawaada. qofka ijaad box ku soo qorayana would be fantastic as well. Okay, dhorqo. inkastoo ay fiican tahay interactionku, waxa ugu muhiimsan cilmiga waxa laga xasuustaay waxaad dhegeysato wad halmaami, laakiin waxa aad ka qayb qaadato oo aad samayso interaction waa waxaadan halmaamaynin waaye, oo qayb ka mid ah waxbarashada ugu muhiimsan. waa waxay dhahaan learning by doing, anigii baro si ficil ku jiro. That's why baan anigu u fadilay inaanan keligay hadlin, laakiin aynu wada hadallo. Okay, Mawlid Xuseen soo dhawow. ما شاء الله دكتور هو ماسين هي سافي عنه برنامج نود دينيو ايو ورا عبد الولي ruhaantii waxaan ku dari lahaa in la helo platform dadku ay ku munaashaqoodaan, ku sheekaystaan, afkaarta kala duwan ay isku wadaarsadaan, ka bacdina isfahan iyo isdhexgal uu ka yimaado. That's really good. platform oo lagu sameeyo mataqaana dood iyo wada hadal oo si fiican laakiin loo maamulo oo loo socodsiiyo, yani absolutely it's essential waaye kaasna in la helo. sida مثلا hadda nadwadan oo kale ama forumkan aynu qabano oo East Africa mataqaana association ay qabato daad oo kale, waa platform fiican waaye really. kolba la jiraa la qabtaa, dad badan baa ka soo qayb gala, in qolka soo gasho oo panelka ku jirta iyo dad badan oo Facebook kala socda. marka in la badiyo really platformyada noocaasa aad iyo aad bay u tahay muhiim. haye yaa kale wax kale ku daraya? farax oo kale wuxuu soo qortay to encourage Somali solution and minimize external influence. Okay, anyway, I can't see. To encourage Somali solution, yes, and minimize external influence. That's really important.
sucaad oo kale bulshada wacyigeeda oo kor loo qaado. Yes. Okay, marka kii hore waa Somali indigenous solution uu noqonayaa. Okay, encouragement. Sucaadna muxuu ahaa? Bulshada wacyigeeda oo kor loo qaado. Public awareness, yes. Good. That's really fantastic. Dibadoo kale wuxuu soo qoray, I think we need to follow footsteps of those countries that have gone through worse than we have. Yeah, waa point-ka adiga sheegtay la mid yahay kaasi. To begin with, we need to effective truth, justice, and reconciliation commission. Wow, that's really good. I'm happy really wayga dadka xitaa uga qayb qaadanayaan through the chat box-ka. That's really fantastic. waxaana loo baahan yahay just lama baahna simirada qaarkood waxaad arkaysaa qof wax soo qoraya maad arkaysaa just to encourage the Somali solution they can see now and minimize external influence. That's really what essential why. In xalka gudaha uu ka yimaado aad loo xoojiyo midka banaanka ana aad iyo aad loo xakameeyo. Waa muhiim. Yes. faraxo kale mar kale to analyze previous attempts and adapt to correct and suitable roadmap. Yes. Okay. Yeah. wax badan la soo qoray wallahi. Okay. That's really good. Abdiwali in any ways and waxyaalahan xitaa markii aan ka baxano macluumaadkan meel aan ku heli karno miyaa jirta? insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noo saf gareeyo fariimahan. Yeah, would be good haddaad intaad ii soo dirto fariimahan ama anaag isu yeesho. waxaan lecture-ka inaan ku soo daro dhawaan si markii dadka la siinayo fikradooda iyagoo meesha ka muuqda. insha Allah. Anyway, notes waan qaatay laakiin wax badan ma qaadan karo. dad bantiya waan qaatay khaasatan dadkii afka ka hadlayay waan qaatin nowdadan ka qaatay. Okay, good. Okay, solution. Isku xiga. Still chat box-ka dadkii waxa ku haya noogu soo diraan please maadaama Cabdiwali uu naga ballan qaaday in meesha uu noogu soo fikraysmayo. Okay. Yep, halkan ku istaag. waxaan aqriyay Somali reconciliation framework aan aqrinayay habeen labaad iyo habeen saddexaad ma xasuusto. marka waxaan arkay faqradan ama mataqaana paragraphkan Somali qowsaynka inta ay ku jirto aniga geliyay Somali tradition indigenous mataqaana mechanism in solving the conflict and the Islamic perspectives were not given a chance as most of the national reconciliation conferences were foreign sponsored with conflicting interests. معناها was clear. يعني dhaqanka Soomaalida ee wax lagu xallin jiray si maxalli ah oo dhaqankeena iyo diinteena la jaan qaadaysay fursad looma siinin in arrimaha Soomaaliya lagu xalliyo. inta badan dib u heshiisiintii la qabanayay dad ajaaniba ama quwada ajaaniba ka dambeeyay oo watay dano iska soo horjeeda. marka wad u jeedaan inuusan ahaan idinkan hadalladiina waxa aad uga muuqday really point-gan si fiican looga hadlay in xalku uu ka yimaado gudaha in aad iyo aad loo xoojiyo mataqaana internal solution ama الحل الداخلي la minimize la xadido ama la minimize gareeyo faragelinta mataqaana banaanka. marka absolutely you are right. waxaynu maanta ka hadlaynaa fikradihiina waa practical way waa waxay dadka u baahan yihiin way kuwaan baa u baahan in la farsameeyo laakiin dhawaana si practical loo fuliyo oo si strategic plan intii la sameeyo. idinkan xitaa intiina panelka isugu timaada haddii waxa ka soo baxay seminarka markaan soo habeeyo aad isku daydaa inaad fulisaan waxaan hubaa waxyaalo mucjiso la arki jiray inaad arki doontaan. wixii waad ku qanacdeen waad u jeedaan fulintiisii waxay dawladdu fulin kartaa wanaagsan dawladdii maadaama ay tabar lahayn wixii idinku marka aad awoodaan dhexdiina aad fulisaan. slide ku xiga oo carabi baan mataqaanaa google-ka aad ii caawiyay runtii si fiican uu mataqaanaa u fasiray التقاليد الصومالية الثقافة والعادات والآلية الأصلية في حل النزاعات والمبادئ الإسلامية لم تمنح فرصة لأن معظم المؤتمرات المصالحة الوطنية كانت رعاية أجنبية وذات مصالح متضاربة. سو كلير عربي ما أدكسن جرين كمبيوتر كي جمال لكن وحنا رفعين وصف عن جوجل وفسر يا براكتس عن كسبي مركا مستقبل كان وأدكسن دونت سو بيوتفول ريالي مركي لغة صحة أدجلسو سي صح وحكومة ترجمة يا. Okay good. أي عبدولي سعه كحية. Okay good. Strategies كي بقولك جرا وحياة مركا وحاجة essential أي تهاي you must
they must be there haddii kuwaas la waayo tallaabo lama qaadi karo kabacdina juziyaad kale aan arki doonaa kow waxa weeye willing al-iraada doonitaan waxay dhahaan willing iyo competence doonitaan iyo karti waa inay jiraan really haddii aadan labadaa midna haynin haddii aad doonitaan hayso laakiin karti aysan jirin wax ma qaban kartid haddii karti aad hayso laakiin doonitaan uusan jirinna waxbaad minjaxaabinaysaa marka willing waa asaas weeye doonitaan waa inuu jiraa sincerity and trust waxaynu ka soo hadalnay kalsooni xumo badan oo bulshada dhexdeeda siyaasiyiinta inay jirto kalsoonidana in la dhiso oo la kobciyaana waa muhim waxaynu ka soo hadalnay in nidaamka governance-ga jiray guud ahaan Soomaaliya uusan effective ahayn effective institution dawladeed waa in la helaa oo ah capacity la bimacnaa wax maamuli kara capacity building ama governance marka laga hadlayo dee waa huge waxa weeye leadership baa soo hosgelaya daacadnimadkii integrity baa soo hosgelaya work ethics baa soo hosgelaya waxaa soo hosgelaya maamulka iyo maareynta in la yaqaano waxaa soo hosgelaya delegationkii waxaa soo hosgelaya communicationkii yani effective governance system oo institutionna ku dhisan waa in la helaa institutionna adag haddaan la helin it's so difficult inay wax hagaagaan the reality is waxaan ka hadalnaa waddanka dhibaato badanaa ka taagan shaqo xumi baa ka jirta nabadgelyo xumi baa ka jirta waxbarasho xumi baa ka jirta xuduudihii oon xadidnayn baa ka jira caafimaad xumi baa ka jirta waxaas qof uma qaban karo waxaa qaban kara institutionnaa qaban kara madaxweyne lasoo doortay iyo cabinet haddaynan institutionada culayska saarin institutionada aan la dhisin waxa weeye waa jugjug halkaaga joog waa marka waxaa muhiim ah shacab iyo dawlad ahaanba in culayska la saaro institutionada ama hay-adaha dawliga ah in la dhisa ayagaa markaa offer garaynaya ama waxbarashadii ayagaa keenaya ayagaa security-ga iyo nabaddii sugaya ayagaa caafimaadka ka shaqayn ayagaa xuduudihii ilaalin marka ayagana waxaa asaas ah institutionadana leadership oo sidaa u fikira maskaxdooda ay waasic tahay oo ay ka hufan tahay kursi keliya waa in la helaa dad really aan ka fikirin kursi laakiin ka fikira maxaad qabataa maantaad joogtaaye maxaan sameeyaa I don't think berri waxa dhacaya laakiin maanta maxaan qabtaa aanan ku fikirin from day one la i doorto 4 sano soo socota saan usoo noqon lahaa siyaasiyiinteena noocaas isaga bataan madaxda ugu sarreysay iyo xildhibaanka iyo qof kasta oo jagahaya haddaad fiiriso markii meel loo magacaabo saadadan intay ka fikiri lahaayeen shaqo inay real qabtaan dadka kuma wada camimi karo runtii laakiin culture-ka guud waxa weeye sideed adiga 10 daqiiqo ku harta waqtiga okay good socodsi waxaan kugu darayaa socodsi baraada hay socodsi sorry 1 minute sorry kii hore wax yar ku celi indigenous approach wax badan ka soo hadalay culayska waa in la saaraa halka dakhliga muhim waa inclusion waa in dadka ay ka wada qayb qaataan rag dumar dad waaweyn dad yar beelaha qaarka laga tagay la liido waa in meesha ka baxaan waa in isku wada darsamaa dadka la wada involve gareeya coherent national plan waa inuu jiraa istiraatiijiyad oo national level ah oo mid short term iyo long term labadaba waa inay jiraan hay socodsi abduwale ku xiga okay strategies in details hadda u gudbana marka intii aan ka soo hadalay waxay ahaayeen very essential intana waa more details waaye waxa weeye new ways of upbringing the children waxaan ka soo hadalay tarbiya xumi dhinaca carruurta inay jiraan waa in runtii gadaal ugu noqona social change waa inuu yimaadaa tarbiyada carruurta iyo qoysasku waxay reflection ka waa muraayada mujtamaca laga aqrin kara weeye massive educational enrollment primary school ilmaha carruurta Soomaaliyeed waa inay u wada helaan access waxbarasho inay dugsi hoose wada galaan dugsi dhexe iyo haddii ay wadaan dugsi sare waxaa leeyahay 70% dugsi sare xitaa ma bilaabaan way adag tahay mujtamac waxbarashadiisa asaasiga 70% aysan iskuul gelin nabad really waa dream xulum waa marka meelaha ugu horeeya laga bilaabi karo waa massive educational mataqaana fursado in la siiyo aad iyo aad fursado waxbarasho xoog badan peace education maada oo ka hadlaysa sida mashaakilaadka loo xalliyo kobcinta mataqaana nabadda oo asaasi ah oo ah compulsory qasab ku noqota ardayda waa in lagu daro iskuulaadka oo maadada miraheedu wuxuu imanayaa 10 sano 20 sano ka bacdi
primary school laga bilaabo ilaa iyo dugsiga sare waa inay maadooyin noocaas qaataan maadaama dagaal laga soo kabanayo shaakil badan uu jiro trauma badan ay jirto khilaaf uu jiro tabashooyin ay jiraan sinaan really rag iyo dumarka beelaha kala gedsan bini'aadamka in lagu qiimeeyaa tayadiisa iyo dadnimadka bini'aadamnimo dhinaca siyaasadda waa inay heshiis ka yimaadaa meesha inoogu daran hadda waa siyaasiyiinta weeye oo meelaha ugu daran oo runtii u baahan in wax laga qabto ayagii sida naftigooda loo heshiisiin lahaa musaalaxa loogu samayn lahaa waxa ugu badan oo hadda mashquul lagu yahay waa ayagiiba mashquul isku raadadan intay waddanka mashquul ku noqon lahaayeen social reconciliation heshiis mataqaanaa bulsho oo ay wadaan culimadu ay sameeyaan ganacsatadu aqoon-yahanada ururada mataqaanaa ardayda ururada xirfoolayda ah kuwa kala gedsan professional institution oo xirfooley ah oo ka shaqeeya nabadda oo really diraasaad sameeya macluumaad aruuriya reference noqdo marjiciya lagu soo laabto ayagana waa in mataqaanaa leeyahay haya cabdiweli ku xiga oh good we done okay fantastic marka hadda waxaan u gudbaynaa wixii open mataqaanaa discussion wixii su'aala waxaan aad ugu faraxsanahay in runtii aad looga qayb qaatay seminarka ama forumkan intuu socday in fikrad fiican la dhiibtay cabdiwelina mar kale waxaan ka codsanayaa in macluumaadka la soo qoray aan access u yeelano marka haddana open to everyone cabdiweli aad baa mahadsan tahay dr yusuf aad buu mahadsan yahay sida uu muxaadaradaas qiimaha badan muddada halka saaca u hadlayay uu noogu soo gudbiyey marka sidii caadada noo ahayd waxa waqtiga yaroo noo haray waxaynu ku qaadanaynaa bal aragtidiina iyo wixii su'aalihii jawaabaha marka way noo furantaa soo dhawaada cabdalla soo dhawow السلام عليكم مالي مغلا maqlaa si fiican abdiweli waa mahadsantahay dictore adiguna waa mahadsantahay sida quruxda badan nagu soo gudbisay inkastoo qaybo kamida ay dhaaftay intii ugu dambeysay un baan hal yar ka weydiinayaa dictorka oo weliba maxaan ku rahdaa maadaama dee dibudhiska iyo maxaan ku rahdaa dib u heshiisiinta laga hadlay xagga maxaan ku rahdaa educationka Soomaaliya anuu Soomaaliya ayaan maxaan ku rahdaa ilaa dugsi dhexe ku soo qaatay ilaa maxaan ku rahdaa dugsi Qur'aankii marka dictore waxaan weydiin lahaa ma laga yaabaa inay maxaan ku rahdaa dhibaatada ka jirta cabdalla wuu ka go'ay miya sorry wala maqlaa walgu maqlaa si fiican dictore maxaan ku rahdaa dhibaatada ka jirta iskuullada for example iskuulka markii ilmaha la geynayo maxaan ku rahdaa macalinka waxa lagula ballamaa hooyada iyo aabba waxay kula ballamaan ilmaha inuu dubka ka qaado oo maxaan ku rahdaa hadduu ilmuhu ka soo bixi waayo casharkii ama quraankii la soo xaftay in maxaan ku rahdaa la ulayo ama maxaan ku rahdaa la dilo iskuulka sidoo kale macalinka maxaan ku rahdaa sidoo kale marka haddii ardaygu soo daaho ama maxaan ku rahdaa wax anshax xumo sameeyo waxaan ku rahdaa ciqaab adag baa la mariyaa aan iskuulka lagu xiro oo subaxii xataa loo diido inuu soo quraac tago wax noocaasa marka ma laga yaabaa inay maxaan ku rahdaa dhibaatooyinka qayb ka tahay ama maxaan ku rahdaa qofkii inuu soo baxo ilmihii inuu soo baxo isagoo maxaan ku rahdaa dee wax bartay oo maxaan ku rahdaa bulshada wax tari kara halkuu soo baxa inuu ka dhinac kale oo ah maxaan ku rahdaa cadaawad iyo maxaan ku rahdaa inuu kala yimaado madrasadii ma laga yaabaa ama iskuulkii mahadsanid cabdullahi waa su'aal kale hadday su'aal kale jirto waxaan soo dhaweynayaa mawlid soo dhawow مولد حسين اوكي جراد سو دو السلام عليكم ومولد وعليكم السلام مولد هيه runtii doctorka aad baan u tahay ugu mahadnaqayaa sida fiican ee quruxda badan leh waxaan jecelahay marar badan in markaa barnaamijkan iyo kuwo kale lamid ah uu noo daadiyo codsiba marka waxa weeyaan doctorka ka codsan lahaa runtii haddaan eegno hadda platformkeena inta ku jirtay ma badna haddaad eegto haddii la yidhaahdo waxa weeyaan fanaan baa la wareysanayaana waa aad baa loogu badanaya ma garatay marka waxaan soo jeedin lahaa in jaamacadaha oo kale ardada dhigato political science-ga iyo waxyaalaha leadership-ka
in runtii ardayda markaas ardaydaas kale lagu marti qaado programkan oo kale ay kasoo qayb galaan taas marjaacada marka in la xiriiro soo jeedin lahaa waxa kale oo idaan soo jeedin lahaa maadaama hadda ka hadlayno peace building aan ka hadlayno haddii aad eegto wadannadu marka dagaalada ay galaan kabacdi ay rabaan inay ka baxaan waa in koorsooyin qasab ay jiraan oo dhammaan arday ay wadaagaan sida markaa peace and conflict resolution oo kale in la sameeyo barnaamij noocaas oo kale marka lagu daro marka ruhaantii doctorka marka aad ugu mahadsan yahay laakiin waxaan jeclahay in teamka waxa weeyaan East Africa Association for Development dad in marka ay xoojiyaan campaignkan ka bacdina marka da'yarta jaamacadaha dhiganayso ay noqdaan udub dhaxaadka iyo kuwa marka waxa weeyaan ka soo qayb galo platformka oo kale ruhaantii waan hadalka waan badiyay qalaga raali hado intaas ku soo gabagabeynaya assalaamu calaykum وعليكم السلام وتلا آدم هي مولد آدم وما سنتهاي إن شاء الله تعالى تلا داسنا مهل باي وانقاذنا إن هدي لهاي qofka saddexaad hal qof oo saddexaad aan raacino cabdiweli أوكي هي جرات سودو waa dhowahay ustaad cabdiweli waa mahadsantahay professorkana waa mahad celinayaa su-aal iyo comment midna ma qabo inaan bogaadiyo un baan hadda usoo galay doctorka waqtiga uu noo horay iyo maxay tahay platformka ayna siiyeen daadayna siiyeen runtii muxaadaradii koowaad ilaa hadda muxaadaradan waan la socday muxaadarooyinkii igu fiicnaayay ka mid tahay muxaadaradan marka aad iyo aadaan runtii Dr. Yusuf Shamar ugu mahad celinayaa waxaan leenahay ilaahay ajir ka siiyo daad oo platformkana siidana ayagana waa mahad celinaynaa inta noo dhimanna waxaan rajeynaynaa inaan si nabada iyo xasilooniya ku qaadano marka boqolkiiba boqol waa idiin mahad celinaya dhammaantiin waa mahadsantiin هذا مدن دكتورة فاطمة تاني أو فيسبوك أنا قصة قرتي وحي لا هاي كل أركتوي وحاول لها مرك رئيسة إن لعبد يودك لبتو دحمرتي وهي الصومالي أو دمي اسم اللين سيدة جيبوتي NFD صومالي قلبيت انتو وصومالي لكن دتك إسلاي وقيب كمدة الجمهورية ده مركا إن لحد يودك أي لبتو دحمرتي أو دتك كوتر سنة جمهورية الصومالية مركا هورتا تشوشي استعمال كمقعة هذا استعمال إنسان الصومالي good okay good فاطمة مية هيت فاطمة الثانية it's a good essay ياري متقن هلا بورنما واي وحادي أدو قبهاي هاي ويا I'm happy سيدا دادكم متقن نجات بوكس أي وحوق السوق قريان وحالا دادك إنه oral site واي دادك فكهلا لكن it seems متقن التفاعل كأنه آديات رنتي أسر رأي واحد آد لوغو فرح واي anyway أنا سؤال لابت سؤاله فاللوينك اللي ديبتي عبد الله aad baan kaaga mahad celin su'aal waxaad weydiisay asaas laf dhabar punishment ama ciqaabta lagu sameeyo da'yarta caruurteena ama dugsiga quraanka xilliga ay ku jiraan ama dugsiyada iskuulaadka caadiga yes waan kugu raacsanahay caruurtu waxay dhahaan geedkan la yiraahdo sponge ama sponjada aan dhahno oo kale weeye sponge ama sponjada haddaad geliso biyo biyihiin baa kaaga imanaya haddaad geliso malabna malabkii haddaad geliso wax qaraar ah ama dacar oo kaleetana ama sunna wixin baa kaaga soo bixi wixin baad ka heli marka caruurta tarbiyada la geliyo unbay ayagana gadaal markay weynaadaan tii unbay dabaqayaan marka wiil ama gabar dugsiga lagu garaacay cabsi lagu abuuray arkay waalidkii iyo macallinkii quraanka ama waalidkii iyo macallimiintii iskuulku ay dhinac ka yihiin heshiis waxay ku heshiiyeen uu yahay in cunugan ama gabadhan la qasbo wax weyn lama weynaanayo macna wanaagsan lama weynaanayo markuu weynaadana ama gabadha ay weynaatana anyway markay weynaadana waxay isku dayayaan oo ayaga position of leadership markay gaaraan in wixii lagu samayn jiray ay dabaqaan psychology ahaan waxa la yiraahdaa exactly cilmi nafsaani ahaan caruurtu wixii yaridooda ay arki jireen lagula soo dhaqmi jiray unbay ayaguna si toos ah ama aan toos ahayn markay weynaadaan ugu dabaqmaan wixii unbay ku sameeyaan practice ama tadbiiq application marka waxyaalaha in haysta qayb kamid ah waa qaybtaas punishmentiga tarbiyada waalidiinta kama aan niyo xumo macallimiinta kama aan niyo xumo iyo macallimiinta iskuulka laakiin waa farsamo xumo iyo wacyi xumo maalin dhexdeed baa nin baa ii sheekeynayay xamar joogo oo arrimahan piiska aad uga shaqeeya wuxuu yidhi waxaa jiray nin waalida
oo caruurtiisa qur-aanka ka dhagaysta maqribadii marka hadday ay gafaan uu garaaci jiray ol buu soo qaadan jiray salaada maqrib markuu tukado miiska waxaa u saaran miiska ayaan odhanin darinta uu ku tukanaya sijaayadda ul ayaa u saaran xaaskiisa u soo dhigi jirtay markuu maqribka tukado oran jiray ka baxa gabar baa carruurta ugu weyneyd way gafi jireen markay gafaana mataqaana dee usha hoosta ka gelin jiray dhammaantood kii gafaba mataqaana aad u xanuujin jiray maalin marka wuxuu yidhi seminaaraan qabanay marka waxaan ka hadlaynay buu yidhi arrinta banishmentiga ama ciqaabta khaasatan qur-aankeena iyo islaamka naxariis lagu yaqaano iyo dhimrin inaan lagu lifaaqin riyel adayg iyo dil markaasuu yir buu yidhi ani dhibkaasaan qabaa waxaase mujtamacu aaminsanaayeen taasaan aaminsanaa in ilmaha dil qur-aanka lagu xifdisiiye wax ku bartaan laakiin wax kale aad ii sheegaysaa inaysnin dhaqanka u zuuliyay carruurtiina de qur-aankii kama baxayaan adaana saas samayn waxaan yidhi buu yidhi waxaad samaysaa usha aad saaraysa darinta aad ku tukanaysa horta bal ka qari habeenka koowaad markaad guriga ku laabato ha tusinba usha dhanba qur-aankana ka baxadhe gabadha ugu weyn qur-aanka aaday u gafi jirtay markay usha aragto ushii markii meeshii laga saari gabadhii qur-aanka si fiicanay uga baxday carruurtii way ka wada baxeen odaygay wuu iska baxay gabadhii baa u timid hooyadeed markaasaa waxay tiri hooyo aabba maanta maxaad ku samaysay ushiina meesha uma taalla nama diline markaasa maana ku samayna maxaad sheegaysa waxba kama jiraanay dhaaf qur-aankii anyway si fiican bay uga baxday carruurtii way ka baxeen markii ay seexdeen ayaa xaaskii u sheegtay odaygay tiri sidaasay gabadhii tiri waxay tiri aabbahay maanta maxaad ku aqrisay nama uusan garaacin ushii muusan wadanin marka sheekadii buu kula soo noqday dadkii tababarka siiyey wuxuu saasaa dhacday qur-aanka si fiican ay uga baxeen sheeko oo waxay noqotay iijaabi ah marka waxaan noo soo baxday buu yidhi carruurta actually qur-aanka waxay uga bixi jireen ushay ka baq waxay u gafi jireen ushay ka baqi jireen markii ushii meesha laga saaray qur-aanka way ka baxeen plus qur-aanka markii hore waxay u baranayeen usha cabsideed laakiin maysan u baranaynin niye iyo waalidkood iyo ixtiraam marka anyway marka arrinta punishmentigu waa dhib weyn oo ina haysta sidii wax looga qaban lahaana loo baahanya marka waa comment aad u fiican mawlid adigana aad iyo aad fikradaada mataqaana ah subject ama unit maado oo peaceka iyo qaabka mashaakilaadka loo xaliyo muxaadarada waxaan malay seminaarka waan kaga hadlay inaad joogtay in kaleba ogi laakiin waad sii adkaysay runtii waa muhim in la soo jeediyay anigu Soomaaliyan tatagaa waxaan bixiyaa koorsooyin oo la xiriira peace buildingka iyo conflict resolution jaamacadka mid ka mid ah la xiriiray dadka rektorada oo jooga qaarkood oon rabay inaan tago December January mid ka mid ah wuxuu yiri peacekii waxa sheegaysa wax macana annaga uma aragno oo leedahay mataqaana waan bixinayaa annaga maadooyinkan culays ka saarayna marka wacyiga dee qofku hadduuna fahansanayn waxana waxa uu yahay iyo faa'iidada ku jirto way adag tahay realisi mataqaana looga dhaadhiciyo marka waa kugu raacsanahay soo jeedintaada garaad waa kaaga mahadcelinayaa adigana mahadnaqaaga waan mataqaana aqbalay ana runtii idin mahadnaqaya dhagaysigiina iyo faalooyinkiina wax badan ayaan runtii mataqaana ka bartay anigu maanta waxaan samaynayaa facilitation laakiin fikradihiina uma farsamaynayo aan aruurinayo waji u bixinayo ma ahaane fikradu xaggiina ka yimaadeen waan ku bilaabay xalku dadka ayuu ku jiraa hal qof waxa maskaxdiisa ka imanaya xal ma ah laakiin waxa dadka maskaxyahooda ka yimaada sida maamahdu ahayd fikradda maankaaga ka maqan maanka walaalka ama walaashaa bay ku jirtaa faadumo aad baad ugu mahadsan tahay yes in aanan annaga hadda arrimaha Soomaaliyan ka hadlaynay ciwaankana wuxuu ahaa Soomaaliya haddaad fiiriso marka marka the context-ga dhan iyo sheekada dhan waxay ku socotay de meelaha dagaaladu ay ka socdaana waa jamhuuriyadda wixii mataqaana la oran jiray oo dhinacii Talyaaniga iyo Ingiriisiga gumaysan jireen oo weeye laakiin cunsurka Soomaaligu guud ahaan waxyaalo badan ay wadaagaan oo mashaakil badan ugu jira oo gobolkan Soomaalida dhib badan bada kala haysta waxa ka jira koonfurta iyo Soomaaliya waa ka jira qabaa'il bay isku lahayaan NFD somehow way fiican tahay Djibouti waa fiican tahay laakiin ayagana qowmiyad kale oo kuwan Soomaalida Ethiopia Cafarti iyo Oromadii bay dagaalamaan Djibouti waa wadan degan inkastoo Cafarti iyo Soomaalida iyo
مجتمع متنوع ثقافات وياهي لكن السيمينار كفوكس كيسو وحوها الصومالي مركا وين الصومالي مركا لا أديكسنيو أما كهذا جيبوتي أما كهذا NFD أما الصومالي كالبيت سياقي عوانك جود مبا مهمة marka sheekada waxa ka dambeeyana waxay la socotaa mataqaana ciwaanka ayay la socotaa anyway wixii duruus faa'iido ku jirtana waan laga wada faa'iideysan laakiin waan qaadanay waa runtii aragti waxay ahayd iga maqan ku mahadsanid walaashay cabdi weli ma santahay su'aal la ii soo diray iyaduna waxay leedahay dadka social media nagala socda doriisu ma rumaysan tahay in Soomaalidu ay heshiiyeen oo ay musaalaxa dhacday haddayse dhicin maxaa ay u dhici weyday hadday dhacdayna see bay u dhacday see kula tabal meesha la joogo waxaan soo raalli hada horta barnaamij nabadaynta marka laga hadlayo musaalaxado itself it's not mataqan an end goal marka laga hadlayo nabadayn iyo musaalaxa waa process waa wax socda wax taagan oo la xaqiijin karo leeyahay maanta nabad baanu gaarnay totally ma jirto laakiin macnaheedu waxa weeye inaan baranno mashaakil markuu dhaco qaabkii wax looga qaban lahaa mashaakilaadka loo furdaamin lahaa dadka loo heshiisin lahaa haddii la heshiisiyey nabadaynta baad haddana mashaakil kale baa imanaya had iyo jeer mashaakilka hadduu yimaadana qaabkii loo xallin lahaa ability-gii iyo xirfadii waa inaan haddana yeelanaa marka nabadda marka laga hadlayaay wax horta meel taagan oo intii la soo qabto la oranayo waa maanta nabadan ku raaxaysanaynaa ma ah haddaan UK baan ku noolahay markii prime minister la doorto wuxuu ka hadlaa ama ka hadashaa waxa la yiraahdo dib u heshiisiin inay sameeyaan waana wadamada ugu degan ka mid ah Australia deganaan jiray sidoo kale any prime minister Australia laga doortay ra'iisul wasaare muxaadarada koobaad uu jeedinaya ama marka la doortay ee guusha uu gaaro waxay ku soo dari jireen ra'iisul wasaareyaashu dib u heshiisiin bulshaan sameynayna oo ah dadkii wadanka loogu tagay indigenous-ka ahaa dadka soo galootiga dadka cadaanka ee wadanka qabsaday UK marka laga hadlayo dadka migrant-iga dadka ethnic-ga cirqiyada kala gedisan shaqaaliyada aqniyada bataqana fuqarada madowga midabada waxaasoo dhan had iyo jeer waxaa jira ixtikaag iyo isku dhac iyo conflict yaa jira haddaan teena u soo laabto Soomaaliya si guud marka loo eego dib u heshiisiin lagu naaloodo oo maanta wax tara ma taalo of course isbedel waa jiraa oo aniga 93gii baan markaan yaano Suudaan ka arday baan tagay Soomaaliya 91kii baan actually tagay markaan jaamacadda bilaabay marka dagaal la oran jiray ciidid iyo arrin hadiba meesha waxa ka jiray really chaos waxa waaye madaafiic habeen iyo maalin haddana 93gii baan ku noqday UN baa joogay UN yana oran Mareykanka markaan joogay xaalad kale ahayd waxa la yiraahdo nalal ma jirin wada mugdi muddo dheer ka bacdi 2015kii aan tagay magaalo nalka wada daaran yahay oo iskuulaad la wada aadayo oo dharkii jaalaha ahaa iyo iskuulaad la wada qaadanayo yaan aragnay laakiin hadda still xabada mataqaan ay dhacayaan marka dhinaca bulshada aan kala saaro dhinaca bulshada waxaad arkaysaa of course dagaalla waa dhaceen laakiin really dagaalada beelaha Soomaalida had iyo jeer waa iska dhici jireen waana la xallin jiray laakiin dagaal beeleed oo siyaasadaysan baa qaab daran dibka meelaha ugu daran oo musaalaxa aysan ka dhicin laakiin waxa la yiraahdaa power sharing aan awood qaybsanna waa dhinaca siyaasadda weey Soomaaliyeed intiisa badan markaad fiiriso of course waa kala tabasho iyo beeli iyo waxyaalaha waa iska jiraan laakiin waxa la xallin kara weeye oo dhinaca diinta iyo dhaqanka iyo dhinaca badan laga xallin karo laakiin meesha sabto ay ka quruntay mashaakilka siyaasiga iyo mataqaana aaminaad inaysan jirin danaysiga cadgoosiga beela in mataqaana la kiciyo oo beelo xitaa dagaalamay grievances tabashadoodii intii laga faa'iidaystay in la isku diro mashaakilka waa dhinaca siyaasiga waa marka dhinaca siyaasiga waxaa ka socda waxa la yiraahdaa power sharing aan awoodda qaybsanno laakiin seminaarkayga qaybta kaga hadlay siyaasiyiinta ayaga runtii u baahan in la heshiisiyo markii la doorto team cusub madaxweyne iyo ra'iisul wasaare actually baarlamaan ayaga runtii u baahan dhexdooda in qulubtooda la isku furo sidee u wada noolaan lahaayeen ummadda ugu wada khidmeyn lahaayeen daacadnimo